بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتيوب channel kan naga daawanaysan waa engineer Ibrahim Osman. Muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa qaab fudud oo uu qofku uga saari karo spaceska faraha badan ee warqadda uu ku qortay Word. Marka waxaan inta badan waxa la arkaa qofku markuu warqadda qorto ama waxa laga yaabaa inaad aragtid warqad aad qoratay oo space badan kaaga jiro. Marka damcada spaceka inaad masaxdidna in qoraalkii ku qornaa uu istirtirayo. Marka halkan waxaan kugu tusayaa sidii ugu fudud oo aad hal mar spaceka warqadda ku jira page-keedu xitaa haddii uu badan yahay aad hal mar uga wada saari karto. Marka haddii aad ku cusub tahay YouTube channel-keena waxaan ka codsanayaa si aan u gaarno meel fiican uguna dhiirano inaan muuqaalo badan oo cashar soo gudbino ardayda ay ka faa'iideysato dadka IT-ga jecel ay ka faa'iideystaan inaad channelka subscribe noo saarto wixii faalo iyo fikir ahna aad halka hoose ee commentiga noogu reebto muuqaalka soo dadka la u gaarana like noo saar aad baad mahadsantiin. Iminka waxaa inoo furan Word-kii waxaan rabnaa markaa in spaceka hadda halkan sidaad ka arkaysaan waxaa ku jira spaces badan oo aan loo baahnayn. Marka haddii aan tirtiro marba mid aan tiro waxay noqonaysaa in meel walba space ku jiro kaba soo qaad buug waxa haystaa 200 page waqti badan buu ka cunayaa. sidaa darteed waxaan ku tusayaa hal badhan ama hal wado oo aad wax laalo wixii warqadaada space ku jiro oo dhan kaga saari kartid. Waa hagaag. Marka waxaan isla qabanayaa markaan warqadda joogo labada keyboardka badhamada waxaan isla qabanayaa marka control anigoo haya ayaa waxaan taabanayaa H. Marka waxaan ku soo furayaa daaqadan waxa la yiraahdaa find and replace. Meeshan ayaa marka waxaan ku qoraynaa shift iyo number 6 ayaa taabanaysaa kadib calaamadaas ku qormaysa waxaad kaloo raacinaysaa W. Marka waa shift iyo number 6 kadib W baad qoraysaa ama wa halka hoose godkan hoosena waxaan gelinaynaa hal mar ayaan space taabanayaa kadib qaybtan hoose waxa ku qoran replace all oo ah in wax allaale wixii space ku jira warqad oo dhan la tirtiro. Marka dabcan koodka halkan labada calaamadood ee calaamadda ay xarafka ayaa bedeli doona wax allaale wixii space. Marka replace all ayaan ku dhufan doonaa qoraalkeenana waanu arkaynaa halkan waa aragtaa warqaddu inuu loading ka wado buugaaga oo dhan faylkii oo dhan waa la hagaajinayaa markiiba waad arkaysaa. Okay, marka wuxuu bedelay 5586 space oo warqadeeda ku jiray aan loo baahnayn. Marka meeshii 3 space oo kale ku jirtay space buu ka u dhaxaysiinaya. Marka space far badan baa halka ka dareemaysaa inuu warqadan ku jiray marka waxaan leeyahay okay daawada aragtaan warqad spaceskeeda oo dhan uu yaraynaya. Marka halkaas oo kale one space baa ku jira barton oo kalena waxa ku jira one space. Marka sidaa darteed wuxuu la dagaalamayaa spaceyada faraha badan ee wixii hal space ka badan oo kale ayuu aad u la dagaalamayaa. Marka farsamadan ayaan jeclaystay inaan ardayda la wadaago muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo.